ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xukuumaddiisu lacag 1 milyan oo dollar ah ay ku bixinayso dhismaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed taasoo lagu daray miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2018 hadalkan ayuu ra'iisul wasaaruhu ka sheegay xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo oo lagu qabtay Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ee magaalada Muqdisho. waxa kale oo yimid Dr. Afrax oo yiri waxaan rabnaa inaad u hiiliso ra'iisul wasaare afka hooyo. wuxuu ii sheegay qiso ah in ay dhagax dhigeen madaxweyne Ismaaciil iyo madaxweyne Xasan Sheekh dhul la rabo halkan in laga dhiso. wuxuu ka codsaday xukuumaddeedu inay garab istaagto. waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixino lacag ah 1 milyan oo dollar. 1 milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda 2018 aan hadda ku jirno oo la soo ansixiyay. waxaana kugu ballan qaadayaa gudoomiye in lagu siinayo 1 milyan. madaxweyne Ismaaciil waxaan leenahay qaybteennii waan ka soo baxnay kaalay aan dhisna meeshii. sidoo kale gudoomiyaha Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga Maxamed Daahir Afrax ayaa hoosta ka xariiqay in munaasabadan ay tahay 18 guuradii ka soo wareegtay markii la aqoonsaday maalinta afka hooyo. afkaagu waa aqoonsigaaga. aqoonsi waan soo wada garanaynaa. aqoonsi sida waraaqda aqoonsiga baasaboorkaaga iyo muxuu ahaa kaarkaaga aqoonsiga oo la'aantiis aan la garanayn cid aad tahay iyo meel aad ka timid. waxaad qabsan kartaana oo lagu ixtiraami karaana ay leeyihiin. gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa goobta ka sheegay in fanaaniintu ay yihiin dunta isku xirta shacabka iyo dawladda waxaana uu ra'iisul wasaaraha ka codsaday inuu il gaar ah ku eego xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin bahda fanka Soomaaliyeed. fanaaniintu mudane Prime Minister dadweynaha iyo dawladda waa aaladda isku xirta. waxaan ku soo jeedinayaa in laga faa'iideysto fanaaniinta Soomaaliyeed oo gacan la siiyo noloshooda wax laga qabto oo la soo kiciyo tiyaatarkiina in loo dhiso. ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha ay wareegto ka soo saareen afka Soomaaligu inuu yahay midka looga shaqeynayo xafiisyada dawladda. sida aan ku soo saarnay wareegtada afka lagu hadlo la isu qoro looga shaqeeyo xafiisyada dawladda Soomaaliyeed waa afka Soomaaliga. haddii qof Soomaaliyeed oo ka shaqeeya xukuumadda uu ku soo qoro warqad ku qoran af qalaad adigoo mahadsan ha u soo jawaabin. munaasabadan lagu xusayay maalinta caalamiga ee afka hooyo ayaa waxaa xubnihii ka hadlay ka mid ahaa gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dawladda qurbo joog ka timid dalka dibaddiisa iyo aqoon-yahano Turki ah oo ka socday xarumaha waxbarashada ee dalkaasi. Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.